badda cadceedu ku dhacdo buuraha ciidda cad dhagaxaanta dabiiciga ah waa halka ay ku taalo eel magaalo xeebeed qurux badan qarniyo badan soo jiidatay ganacsato taariikhyaano iyo halgamayaal haddaba intaan u guda galin taariikhda subscribe ina soo dheh like-tana haynaga baqay eel waxay caan ku noqotay taariikhdii halgankii daraawiishta intii u dhaxaysay 1899 1921 magaalada eel waxa ay ahayd saldhig weyn oo uu isticmaali jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan iyo ciidamadiisii daraawiishta qalcadda taariikhiga ah ee weli taagan eel waxay astaan u tahay dagaaladii lagu qaaday gumaystaha Ingiriiska iyo Talyaaniga waxa la oran karaa eel waa magaalo xambaarsan haliyo iyo halgan qaran maanta eel waa magaalo nolosheedu ku tiirsan tahay kalluumaysiga iyo xoolaha nool dadka deegaanka waxa ay caan ku yihiin kalluunka badan oo loo dhoofiyo deegaanada kale xoolo dhaqashada oo qayb ka ah dhaqaalaha dhaqanka iyo suugaanta bulshada deegaanka oo wali xoogan inkastoo magaalada ay wajahtay caqabado badan sida burcadbadeednimadii soo martay xeebaha haddana maanta eel waxay ku socotaa waddo horumar iyo xasilooni eel waxa ay leedahay xeebaha ugu quruxda badan Soomaaliya xeebaha ciidda cad dooxooyinka quruxda badan iyo duurjoogta ayaa ka dhigaya meel u qalanta dalxiis iyo cilmi baaris waxaa jira kalluun noocyo badan oo badeed oo ka dhigaya meel qani ku ah kheyraadka dabiiciga ah mustaqbalka eel wuxuu ku xirnaan doonaa sida loo maareeyo kheyraadka dabiiciga ah loo ilaaliyo taariikhda iyo dhaqanka sida bulshada loo siiyo fursado shaqo iyo waxbarasho magaalada eel waxa ay leedahay awood ay ku noqoto xarun dalxiis kalluumaysi iyo ganacsi haddii loo maamulo si wanaagsan ugu dambeyntii eel ma aha oo kaliya magaalo yar xeebeed waa qayb taariikhi ah oo xambaarsan halgankii daraawiishta waa hoy dhaqameed qurux dabiici ah oo sugaysa in dunida la tuso eel waa magaalo xeebeed leh taariikh iyo mustaqbal ifaaya